waxaan maanta halkan aan sugu imaanay guud ahaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka iyo dhammaan intii kale hadda halkan ka maqan balse aan wada hadalnay oo ah culimada iyo waxgaradka kale iyo ganacsatada dhammaan waxaan rabaa inaan wargeliyo oo ay gaarto fariintan si gaar ah deegaanka Bakaroole tuulada Bakaroole oo dhacdada ay ka dhacday shalay galab in aanan raalli aan ka ahayn wixii shalay ka dhacay deegaanka Bakaroole sidaas oo kale arintaas dhacday inay ka dhacdo tuulooyin kale oo ayadana kamid ah deegaanka Warshiiq raalli kama nihin waxa halkaan aan sugu imaanay waxay tahay markaas inaan u gudbino baaqaasi kadibna in aan sidaas isla mid ah inaan u gudbino maamulka Hirshabeelle oo aniga ba qayb aan ka ahay iyo dhammaan bulshadeynta inteeda kale inaan ka shaqeynoono hadda iyo wixii ka dambeeyana inayna dhici doonin dhacdada hadda dhacday oo kale taas awgeed waxaan leenahay ciidamada iyo dhammaan inta kale oo jecel inay amniga wax ka qabato in ay kala soo xiriirto maamulka degmada kala soo xiriirto odayaasha dhaqanka kala soo xiriirto xildhibaanka ay leeyihiin kala soo xiriirto bulshada qeybaheeda kale kadibna saas inagoo wada jirno amniga aan ka wada shaqeyno amniga sidiisaba wuxuu u baahan yahay in la iska kaashado laga wada shaqeeyo u baahan yahay amniga cidna ma dhihi karto aniga ayaa amni kuu sugaya haddii amnigaasi aadan adiga dadkii aad amni u sugu laheeday aadan wargelinin oo aadan kala tashanin waxa aad u sameyn laheeday marka waxaan kula noqonayaa oo aan leeyahay ciidamada shalay tagay halkaasi waxaa ku tagteen waxay ahaaday si ka dadban sida inaad ku tagtaan ee ahaaday taasoo la rabay in wada tashi aad ku tagtiin iyo xoogagaalnimo in oo idin horkaco maamulka degmada gaar ahaan gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa inay meeshaas goobjoog ka yihiin sidaas isla mid ah dadkii deegaanada tuulada oo la aadi lahaa lasii wargeliyo ee ayaga laftigooda ay qayb ka yihiin la tashigaasi iyo amniyeentaasi haddii amni ay tahay haddii ay tahay in oo la soo kormeerayana in loo sheego oo la yiraahdo saacad hebel ayaa idinku soo soconaa gudoomiyaha iyo waxay u taalaa iyo dadka kale oo xagga nabadeynta u jooga ama aan leed oday dhaqankii haddii aan lahaayeen maxaan ku raahdaa tuulada ninkii oo gudoomiyaha ka ah kadib gudoomiyaha inay daba kacaan gudoomiyaha markaasi asaga ayaa tuulada tagaya wixii dhacay ma dhici lahayn haddii arrintaasi shalay oo gudoomiyaha la socdo ama ku-xigeenadiisa ay la socdaan ama la iska wareysan lahay ma dhici lahayn arrinkaasi marka waa ka soo horjeednaa runtii in arrintaasi ay soo noqoto mar kale waxaan marka baaqeena kusii darsanaya waxay tahay dadka deegaanka Warshiiq waa dad dowladnimada iyo wanaagga jecel sida hadda maqleyseen odayaasha dhaqanka waxay ka dhawaajiyeen dhammaantooda inayn raalli ka ahayn wax la yiraahdo amni xumo inayn raalli ka ahayn isbaaro marka intaas ayaa idinku filan waxaan leeyahay marka la tashada haddii wixii ka dambeeyana ogaada in degmada ay leedahay maamul ogaadana in maamulkaas uu leeyahay naftigiisa dad oo asaga soo dhisay oo asaga naftigiisa meesha oo ku yimiday oo ah dadkii odayaasha dhaqanka ahaa iyo dadkii kale oo asaga ka dambeeyay marka waxaan ku soo koobayaa hadalkayga dhammaan ilaaha noo nabadeeyo deegaanada ay hoostaga degmooyinka Cadale iyo Warshiiq anigoo hadda ka faa'iideysanayo munaasabadan waxaan leeyahay ha loo kaco haddii aan lahayd deegaan maamulka Hirshabeelle haddii aan lahayd dowladda dhexe iyo haddii aan lahayd inta kale oo wax ay ka go'do sidii degdeg loogu nabadeyn lahaa oo degdeg deegaankooda ugu noqon lahaayeen dadka laga soo barakiciyey dadka ku dhibaateysan meelaha kale oo hadda daafaha u ah degmada Cadale in sidii degdeg loogu celin lahaa in laga shaqeeyo taas ayaa ah tan koowaad tan labaad wixii kale oo amni ahna inaan iskala wada shaqeyno oo aan isla xiriirno waxaan leeyahay dhammaanteen waxaana deeqo nabad ayaa ah midda kaliya aan ku noolaanayno oo dhammaanna waa ogtihiin colaad waxa kaliya keenaysa waxaa waaye in dadka degmada Cadale dega iyo degmada Warshiiq dega inay kala fogeyso ee u keento mugdi iyo dhibaatooyin badan marka waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi degdeg loo dhameeyo oo degdegna hooshooda ay mid miro dhasho u noqoto ayna noqonin mid hadda socoto oo kale oo soo dheeraatay muddo aad u dheer